markale soo dhawaada asxaabta qiimaha badan waa casharkeena tobnaad iyo coursekeena imtixaanaha quickbook oo aynu ku geeyi doono qaabka systemka loo geliyo ama loogu diiwaan geliyo waxyaabaha aad ka ganacsanayso itemska iyo waxyaabaha kale ee la taxalluqa sida serviceska. tusaale ahaan shirkadaadu waxay ka ganacsataa iibinta alaabta sida raashinka, sida biraha baabuurta oo kale, waxyaabahaas oo dhan waxaa loo nayaa waa inventory. tusaale ahaan haddii aad haysto school ama institution waxbarashada bixiya, tusaale ahaan waxaad isticmaali doontaa waxa loo yaqaano service. tusaale ahaan markaa shirkadaada waxaa la odhanayaa waxay bixisaa service, adeeg bay bixisaa. haddaba si aynu diiwaan gelino alaabteeni adoo joogo home page-kaaga ama desktop-ka hore shaashada quickbook-ga, halkan waxaa ka dalban kartaa items and service, ama waxaad tegi doontaa list, kadibna waxaad oran doontaa item list, kadibna daaqadan baa kusoo bixi doonta wixii items ah ee ku diiwaan gashan. halkan ayaad kala socon doontaa itemka magaciisa, description-kiisa, noociisa, akoonka. tusaale ahaan waan arki doonaa inta gacanta kaaga taala qiimaha la siinayo. hadda waxaan tegi doonaa item, kadibna waxaan leenahay new item, ama waxaan isticmaali doonaa shortcut-ka Ctrl+N. kadib aan ku dhufano halkan waxaan ka dalban doonaa nooca itemkan aynu isticmaali doono, aynu diiwaan gelin doono. service ba oo tusaale ahaan oo kale waxaa loo isticmaalaa maxaynu nidhi haddii aad rabtid inaad diiwaan gelisid service ama adeeg marka aad bixisid. tusaale ahaan shirkadaadu tusaale ahaan oo kale sometimes mararka qaar waxaa laga yaabaa inay soo galaan lacago, ama tusaale ahaan oo kale kaba soo qaad arday oo kale tusaale oo kale haysataa, markaas service ahaan baa u diiwaan gelinaysaa. inventory oo kale waxaa loo oranayaa oo waxyaabo stocki ku yaala, tusaale ahaan oo kale oo macaamiisha aad ka iibin karto oo ku yaala oo miiska ku saaran. waxaa jeclahay non inventory, tusaale ahaan oo kale service iyo inventory-ga labadooda way ka soo iyo non inventory baa leeyahay. tusaale ahaan oo wax macaamiishu ay ka iibsanayso oo tusaale ahaan marka loo baahdo aad ama u dalbayso ama aad u sameynayso. tusaale ahaan oo kale sida boordaha oo kale ayaa loo isticmaalaa. waxaa jecel loo yaqaano payment oo kale, tusaale ahaan oo kale waa tusaale ahaan qofka customer-ka ah oo kale, tusaale ahaan oo kale markuu alaab intuu ka iibsado uu qaybsi bixiyo oo kale, tusaale ahaan ama cash ahaan ku bixiyo ama check ku bixiyo, wuxuu tan waa ka bixiyo. tusaale ahaan waxaan dalban doonaa inventory part, tusaale ahaan item bayn diiwaan gelin doonaa. maxaa kamid ah tusaale ahaan kale waxaan iibinaa, tusaale ahaan oo kale recordada oo kale ayaan iibinaa ayaan leenahay. kadib halka waxaan leeyahay sub item, waa in itemka item la hoos geeyo. marka recordada markaan diiwaan gelino recordka noociisa ayaan hoos geyn doonaa, sidaas isaga doonaa baynu insha Allah dib baan ka xili doonaa. manufacture tusaale ahaan part number baa jira oo kale isagu option iska deyn kartaa. halkan waxaa ku yaala description on purchase transaction, tusaale ahaan kale items kan marka aad soo iibsato oo kale, tusaale ahaan kale description tusaale ahaan oo kale la raaciyaa jira. tusaale ahaan oo kale waad qori kartaa, waxaa rabto ayaad ku qori kartaa. tusaale ahaan halkan waxaa jira isaguna description ama faahfaahin dheeraad ah oo ah description on sales transaction, waa marka aad adigu iibsid oo kale, tusaale kale ee customerska aad invoice ku jirto oo kale description kani soo bixi doona. halkan waa cost-ka, tusaale ahaan kale imsaad tusaale adiga imsi ku joogaa $12 oo kale ugu joogaa. tusaale kale tusaale kale waxaan leenahay sales price-kana waxaan siin doonaa $20. halkan waa cost of goods sold siin doonaa. halkan waa income account, hadhowto transaction-ku marka uu dhaco ama la iibiyo itemka oo kale xaguu ku dhici doona ama saameyn ku yeelan doona waa sales-ka akoonka sales-ka. okay, halka waxaa noo yaala inventory information. waxaa ugu horeeya waa inventory weeyaan, waa asset-kani ama waa anti inventory ah, waa item wax la taaban karo oo kale. tusaale kale halkan waxaa yaala order point waxa weeye item-kan e3 oo minimum iyo maximum baa kala jira. tusaale ahaan waxaan haystaa 10 record baan haystaa. marka 10ka record minimum ugu yaraan marka ay ka hadhay 5 idig oo ii sheeg systemka ay sheego, ugu badnaana markii ka taalo maxay 8 xabo oo kale. tusaale kale on hand inta gacanta kugu jirto oo kale baad gelinaysaa. tusaale marka haddii meherada hore u furnayd, halkan waxaad gelinaysaa inta item ee shayga, inta item ama inta xabo ee itemka ama shayga ka taala ayaad gelin doontaa. tusaale ahaan laakiin inagu waxaan rabnaa itemska aynu markaan rabno inaan muujino oo balance sheet-kana uu kasoo muuqdo marka aynu soo iibsano ama soo deymino, baan rabnaa inuu kasoo baxo dhanka loo yaqaano balance sheet-ka. iminka laakiin ma rabno in uu wax inventory ah xagga balance sheet-ka ka muujiyo, waxaan rabnaa maxay
inaan diiwaan gelino marka inta markaas laxatid waxaad leedahay next halkan oo kale waa preferred vendor tusaale kale itemka cid la xiriirnay season saga din doonaa ama cid marka aad tusaale ahaan oo kale hadii ay jiraan cid ka soo iibsatay ama cid ka soo qaatay waa diiwaan gelin laga nagu waxa dib ka qaban doonaa xaleenahay next waaye marka halkan wuxuu ku leeyahay description-ka uu san garanayn maadaama aan Soomaali ku qornay marka ignore baan iska leenahay marka item labaad ayaynu diiwaan gelin doonaa waxaan diiwaan gelin doonaa tusaale kale breeze waayahay halkan description-ka ayaan ku qornaa waxaan leenahay breeze Soomaali oo kale tusaale kale cost-ka kiiska wuxuu nagu joogaa tusaale baan leenahay $20 inaguna waxaan siin doonaa $25 halkan automatically service buu haystaa kadib waxaan leenahay okay inta marka aan soo sameeyno haddaan ku soo laabano itemskeeni halka waxaan yeelaa breeze description-kiisu waa breeze Soomaali waa inventory waa sales wax total ama wax items ah oo ama number ah inuu yaala ma jiro price-kiisuna waa $25 haddaan tagno report-keeni company financial balance sheet standard wax isbedel ah oo halkan ka soo kordhay oo inventory ah ma jiraan hadda waxaan eegi doonaa sida surface-ka tusaalahan oo kale loo diiwaan geliyo waxaan tagi doonaa list kadib waxaan leenahay item list qaabkan markuu inuu soo kaxo waxaan daawan doonaa ishan kadib waxaan leenahay a new item kadib waxaan leenahay a service tusaalahan oo kale waxaana soo galaa dakhli oo kale ayna soo galaa tusaalahan oo kale ama waxaan bixinaa training baan bixinaa tusaalahan oo kale ama waxaan bixinaa tababaro tusaalahan kale tababar baan bixinaa sometimes ka soo qaad waxaan bixinaa maxay tababaro waan leenahay tusaalahan kale tababaro okay tababar waan bixinaa tababarkaas tusaale ahaan oo kale isagu wuxuu noqon doonaa professional fees oo kale waan oran karnaa saleskana waan gelin karnaa halkana rate-ka waan gelin karnaa tusaale ahaan waxaan oran karnaa waa $20 $100 laakiin waxaan sameyn doonaa tababar markaan ka dhigno tusaale ahaan tababarkan waxaan leenahay waxaan bixinaa tusaale kale tababarada quick book oo kala leenahay tusaale ahaan quick book kadib waxaan leenahay sub item markaan ayaan inta saari doonaa kadib waxaan hoos gelin doonaa wax loo yaqaano tababaradan hoos gelin doonaa rate-ka waxaan ku bixin doonaa $100 baan ku bixin doonaa kadib waxaan leenahay okay markaan soo laabano haddii aan eegno waa tababarada aan bixino waxa kamid ah wax loo yaqaano tababarada quick book oo kale ayaa kamid ah tusaale ahaan haddii in yar halkaan werjino quick book waa service oo professional fees waxaan ku bixin doonaa $100 marka waa qaabka ugu fudud ee aad u diiwaan gelin karto waxyaabaha aad ka ganacsato inta aynu ku kulmi doono casharka xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.